السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي قروح بدنيد النوسو دويسين أنا وقتي إلى الصعدة أنا وأهم شرحشين علي وأني كم هاد علينا إياه ولو أشيلن كي جاب كي نوسو دويسين هذا أنا يسوع بيحكي قروح بدنا النوسو ميسين وحيق نوجي وكم هاد علينا أنت عمرك لقى صوت تقو إنسان الله سعتان قربي واحد ماضي قدار والبعوسري بعد جوجه قف كي دب كامدول ولا درية ubadkii Soomaaliyeed waxna jeel baa la dhigay waxna waa la guranayaa oo hooyooyinkoodii aabahooda dawladaha ka guranaya wadankii Mareykanka ahaa baaxadul haa ogeydeen waxay doorteen in la yiraahdo Trump oo doqora oo xataa garan waayay dadka Soomaaliyeed dagaal suuqay ku jiraan oo ballan qaaday dadkii Soomaaliyeed oo dhan inuu soo celinayo taasi waxay sababtay dadkii Soomaalida ahaa ee Mareykanka ku noolaa inay noqdaan dad cabsi ku nool ah oo ilaahay hadduu ku idmahayo wadnaha farta ku haya qof walba leeyahay goorma lagu celinayaa anigu waxaan noqday nin maxaan ku raahdaayay hawlgab ah waa ii cuntami weyday dalka Mareykanka oo dhul gaala ah in laygu aaso halka maartay aan hawlgab ku noqdo maskaxdeeda iyo murqayga oo guriga cidla ay ku dumaan waxaan go'aansaday intaan Trump soo tuurin inaan anigu iska soo tago dadkayga iyo dalkayga Soomaaliyeed u imaado khaasatan reer Puntland iyaga wax la qabo intii guri cidla ah stress iyo daqad igu dil lahaa oo darxumo u dhiman lahaana iyagu ay rogrogtaan haddii wax la iga dhaxlayana ay iyagu iga dhaxlaan waxaan kaloo ka war helay in jagadii madaxweynaha Puntland ay bannaan tahay oo ay rabtaan cid inay shaqaysa waa arrimaha keenay inaan soo degdegay ka mid tahay waxaan doonayaa oo halka kaga dhawaaqaya inaan musharaxahay oo ballan qaadayo inaan idinka shaqaysanayo idinna shaqayn doono haddii la idin ka dhigo oo adeegyo badan aan idin qaban doono haddii la idin ka dhigo marka musharax baan ahay doorashadan galaya istaahil baan ahay 30 sanaan Mareykanka soo shaqaynayay shaqo nooc walba waa soo qabtay nin odayaan ahay maanta de waxa weeye inaan wax idin wanaajiyo ma aha nin lagu tumayo in wax ka kharibo marna mihi anigu oday baan ahay waxa weeye dadkaygi baa tihiin codka in asiisaan waa idinka codsanaya nin oday ah oo waxa weeye hadda soo dhacay halku dhigna waxa ay ah waayeen hadda soo kuday marka wixii su'aalaha qabtaan dadka sharafta leh soo dhaweeyay ininkoo anigu bahalkaynayn dhabarkaas xooga maartay fadhiga ay diba marka wixii su'aalaha qabtaan ii bobsiya hadii sina oo dhaga yara culus ah codka kor loo qaado marka soo dhawaada yaa su'aala qaba ninkaaga caatada ka u dhiiba mikrofoonka ka caatada u dhiiba mudane musharax cabdiwali cali gaas doorashada faragelin badan buu ku hayaa madaxweynaha hadda baarlamaanka isaga soo xulanaya marka hadii uu mar kale guuleysto ma aqbali doontaa natiijada doorashada adeer ayaan daro weeye gaas doorashada kuma shuban karo mar kalena lama dooran karo keligii cuna weeye waa ninkaas waxa weeye sabab loo doortaana ma jirto 4 sano halka joogay wuxuu cuni karay waa cunay wuxuu dhisan karay waa dhistay makaligiisa dalka u tahriibay makaligiisa u dhoofay annagii ba maanta nimi waxa weeye annaga ilaahay nooma qorin yaa dekada boosasay inaan maanta ka shaqaysano wali laba dhagax ma saarin isaga waxa la sheegayaa 4 guri inuu dhistay anigu 30 sanaan maqnaa oo dibadda jiray guri kiraan intii ku jiray maanta istaahil baan u arkaa inaa ii dhibtaan inaa inii shaqeeyo oo in ka shaqaysto oo guri iyo usoo shanbu dhistaano mid kaliya in ka dhisto saasaan maanta doonaya cabdiwali waa ninka kari waayay war dadkii Mareykanka kaga timi oo akhyaarta lahaa hadii ilaahay meel fiican ku maartay jabi adiga oo dad maxaa ku raad xoolo wata ilaahay ku sakhray inaad dadka tigra u dirto oo waqtiyada samarka ay maartay soo hawo bedeshaan ninka inta kari waayay sabab marka loo doortaa ma jirto marka cabdiwali baa la dooranayaa taa ma maqli karo aniga kaaga ishala si ka mikrofoonka ishala waxa su'aal qabta adeer musharax wadanka abaaro badan baa ka dhacay dadka intooda badan gaajo iyo haraad bay u dhintaan calala hadii lagu doorto maxaa kaaga qorshe macaluusha wadanka ka jirta iyo biyo la'aanta iyo dadka nafaqa darrada iyo gaajada marka qaar kood u dhimanaya
adeer su-aal muhiim ah weeye su-aal muhiim ah su-aasha ay weydiisay weeye waxa weeye gaajo waddanka inay ka jirto macluul ka jirto tvyadan ka arkay ayaan daro weeye 30 sano anu waxaan ka shaqaynayay restaurant maqaaxi la yiraahdo McDonald baa 30 sano ka shaqaynayay McDonald waa hal maqaaxi hal nin baale 200 oo milyan baanu maartay u adeegi jirnay maalintii oo cunto siin jirnay oo quudin jirnay Puntland oo 2 milyan ku nooshahay in maalin kasta la dhaho waa gaajoonaya waa wax laga naxo weeye hal restaurant baa inii furaya McDonald oo kala inii furaya qof walba labadiisa xabbo roodhiga ah koobkiisa shaaha xabadiisa sharaabka baa miiska loo dhigaya inuu dadka ka guri weyntiin teeda kale aad waxa la doonaya hay'adda saadaasha Puntland oo maartay inay sii sheegto xilliyada abaartu jirto oo maartay ay jirto maartay inay sii sheegto oo sataladyadu ay noo sii degaan si xilliyada abaaraha aan kayd fiican u dhigano ya adeer oo Puntland haddaysan lahayn oo berri ina kuleel tahay ina qabow tahay ma kala garan kartaan miya in roob da'aya iyo inuu maartay baraf da'aya ma kala ogidin miya naga daaya hadda hay'adana sameynayna waa hay'adda muhiim weeye dunida waxyaabaha ku shaqeysa ka mid tahay adeer waxa weeye way sii sheegaysaa sataladyada sii sheega marka abaaru xilliga jiraan raashin badan dhigan doona marka saas weeye gaajada ma jirto maqaaxi baa gabiina wax leen ka siinaya 200 milyan ah soo siin jiray way taraan ha qof walba miiska u dhigi jiray isagoo qalacsan oo iga tagi jiray marka adeer waa gaajada ma jiri doonto insha Allah ka ilka jaban ka u dhig mikrofoonka mudane nin la yiraahdo Muuse Bixi madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay inuu qabsanayo magaalada Garowe haddana duleedkeedu jooga meeshii tuqaraqa hay dagaaladii ka dhacay waa la socotaa Somaliland ba hadda haysata gobolkii Sool wali gacanta Puntland waa ka maqan yahay haddii lagu doorto gobolkaas sidee u soo celinaysaa maxaa kaaga qorshaha xoreynta gobolka Sool adeer waxa weeye horta Sool yaa laga xoreeya dhulbaanta isaga dhulkiisa haysta ma dhulbaanta la kala xoreynaya waa may weey dhulbaanta waxa weeye midaysan anagu saan taariikh ku hayno Ingiriis buu digada ka dhigay idoorna duhur cad buu duwan karaa marka dhulbaanta isaga dalka iska haysta sabab maxaan ku raadto qaraq ay ciyaal inoo ka dhintaan anagu ma jirto waxaan sameeynaa hadii ilaahay ku yidmaayo hadii la doorto waxa weeye ciidamada Mareykanka qaabka u shaqeeyaan tvyadan ka daawan jiray ciidanka Puntland furinta hore geeymayo aniga dhulbaantan abaabulaya haday iyagu dad iska dhicinayeen ka bacdi ciidanka cirka Puntland air support baan siinayna duqayn baan sameeynaa maartay ciidamada maartay Somaliland waa hawada ka garaacayna iyaguna infantry ahaan haw galeen laakiin ma ogoli in maartay front line-ka wiilasheena ku dhintaan ma jirteen halka ma jecel aniga waa arintaasi waa micna daro tukaraqa waxa weeye gaasa dadka hadda ku laayay sabab meel cidla ah maartay oo dadkii laha haysto inta nooga dhimato ma garan karo adeerya wari Puntland ciidan cirib male maandhow waxyaabaha balanqaadyada waaweyn oo halka nooga sheegayso oo ciidanka ciri leh oo adduunyada kale leh oo dabaabadaha leh maandhow xagee ka keenaysaa dalka qoriga ka ahaa waa la laayahay nasiib darooyinka dhacay ka mid tahay seebaysan Puntland ciidan cir u lahayn adduunyada waxa weeye ciidanka cirku number 1 weeye marka haddana first priority uu ahaanaya anu waxaan islahaa ciidan cir xataa haddaysan Puntland diyaarada cusub soo iibsan kuwii migagiisiya bar laga dhaxlay baa wax ka yaalin baan islahaa marka shida male hadda Ruushka ka soo kiraysan doona Ukraine taala oo waxa way caloosho shaqaystayaala laba xabo kanata wuxuu baa soo kireynaa laakiin anigu idin balan qaadi mayo ciidan infantry ameesha ma gelinayo marka diyaaradahaasaan idin keeni doona hadii la ka dhigo gabadha garoobta u dhib maandhow saan la socoto dowladii federaalka faragelinteeda waa laga baqayaa doorashada ula booco ugu soo kutubayaan baa la yiri ninkii khayriyo farmaajo waxa weeye musharaxiinta qaar bay wataan baa la sheegaya asaasa suuqa ku jirta marka maandhow arrimahaasi walwal intee la eg bay kugu hayaan maxaa kaaga qorsho ah adeer dhigayso federaalku nama soo faragelin karo federaalku Puntland ma soo faragelin karo Soomaali federaal ay noqotay reer kasta xaafadiisa soo ilaashada la yiri xaafadina xaafad wuxuu u gudubto gardar weeye farmaajo anaga muxuu nagu darsaday maraxaan muxuu nagu darsaday galmudug mee noo qaateen Jubbaland noo qaateen meestan waxa weeye ma jirteen in lagu qurxiya degan marka waxa weeye dadkaas nama soo fargashan karaan murarsadana qof murarsada anaga habeen noo ma soo hoydo marka khayre wala farmaajo midna faragelin ka yeelmeeno waxa weeye anagu danahayga anaga ka shaqaysanayna faragelinta wuxuu aan ka qaba ma jirto hadee dhacdana waa iska dhicinayna Soomaali waxa ugu badisaa reer kasta inuu danaysa ilaashado dawlad dhexe oo awood leh ma doonayna anaga ma doonayno horaan noo ku kaday noo ku laayay waa ogeyd wixii naga soo maray
SSDF iyo waxyaabaha waa la socotaan marka ma jirto waxaas adeer ma jirto 30 sano waxa qurbay baday oo maanta anigoo maartay pension igu soo keen caliyay waxa weeye dawlad xoog loo Soomaaliyeed bay ahayd marka yeeli mayno hadii laadan ka dhigo intaas aan uga baxay waa su'aashii ugu dambeysay way adeer ahay daalilina waxa ay ka maartay qeylad badan ka bodboodaya ka maandho u dhibka la socotid musharax wadanka amni darro badan baa ka dhacday maamuladii Puntland soo maray waa ku guuldareysteen inay ciidamada dhisaan galgala waxa weeye argixisa joogta xaqii la oran jiray barigii Daacish baa laga sheegayaa ciidamadii daraawiishtu mushahar muddo badan ma qaadan booliis badani ma jiro maxaa kaaga qorshe ah dib u dhiska ciidamada oo aad dadka reer Puntland u ballan qaadi karaysa haddii ay ku doortaan inaad qaban doonto adeer ammaanku waa muhiim weeye ammaanku muhiim weeye wuxuu yahay priority kood biyo ammaanka haddii ilaahay ka dhigo ammaanka si fiican uga shaqeynaya ammaanka maaragtay si fiican uga shaqeynaya adeer waa inay adeegi doona 8 jira khibradda ugu badan ammaankan ka leeyahay Mareykan dadka dariskayga ah taa igama soo caban inta halka ku noolaa dad xataa isdilaya ma arkin marka ammaanka sida loo sugayo khibrad fiican u leeyahay hadii la ka dhigo waa sugi doona midda kaleeto adduunka hadda waxa jira waxa la yiraahdo deterrence baa jira wadanka hadaadan hub culus haysan Mareykan baa kugu soo degdegaya sida carabta lagu leynaya marka Puntland 20 sano jirta ilaa hadda ma maqal qumbulad nuclear tijaabse ma maqal sida Kuuriya gantaaladii hawada maartay qaadaha soo gudbi jiray tuurtay ma maqal marka waxaan sameeynaa hadii la ka dhigo barnaamijka nuclearka Puntland waa dadajinayna muddo sanadka ugu horeysa tijaabada ugu horeyso maartay gantaalada hawada aan dirayna insha Allah kuwa qaaradaha soo gudba Mareykanku halkiisa ku baqay insha Allah saasaan yeelena 8 sanaan jira iska dhaaf Puntland noole ilaahay abuurtay oo Afrikaan oo nuclear iyo gantaalada qaaradaha soo gudba halka ka xustay ku hamiyay ma arkin ma Puntland oo labada gobol baa maanta waxa leedahay nuclear bay leedahay warka ma jiro Puntland meeshatan hubka ay sheegayso kuma hayso waligeed ma hindisin qorshaheeda ma gelin Soomaali weyn xataa ma soo hadal qaadin xaggee adigu ku maqnay ma waadan dalka la socon de adeer waa wax laga naxooyay inaan Puntland barnaamijka nuclear-ka lahayn sacaboolay tahay aaka waa waqtigii lagu dagaalami jiray waxa ahayd 77kii waa laga soo gudbay maanta hadaadan hub weyn haysan oo meesha ku turto milyan ku dhimanayo bilaksta ku soo degdegaysa marka hadii ilaahay ka dhigo barnaamijka haddaan sameyn doona barnaamijka nuclear-ka maalinta ugu horeyso la doorto baan saxiix doona hadii ilaahay ka dhigo saasa loo balana